wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa si rasmi ah kala xadeyn waxa ay ugu sameysay degmooyinka Salaxley iyo degmada Hargeysa iyadoo bartii kontaroolka ee duleedka magaalada Hargeysa u taalay degmada Salaxley oo markii hore xadka Salaxley uu halkaasi ku asteysnaa loo raray goobta loo yaqaano mitirka oo u dhaxaysa Hunduli iyo deegaanka Toon waxaana goobta loo yaqaano mitirka halkaasi ka dhagax dhigay dhismaha cusub ee barta kontaroolka kala xadeynta degmooyinka Salaxley iyo caasimadda Hargeysa mas'uuliyiinta gobolka Maroodijeex iyo sidoo kale maamulka degmada Salaxley agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland xubno kamida golaha wasiirada iyo sidoo kale bulshada deegaanka oo ka soo qayb gashay dhagax dhigaasi kala xadeynta loo sameeyay degmada Salaxley iyo caasimadda Hargeysa ayaa waxa hadal ka jeediyay mas'uuliyiinta gobolka Maroodijeex maamulka degmada Salaxley wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland duqa caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale xubno kamida golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland iyo bulshada deegaankaasi ku nool waxaana ay soo dhaweeyeen talaabadaasi lagu kala xadeeyay degmada Salaxley iyo caasimadda Hargeysa hawshan maanta halkan mitirka aan dhigayna ee kontaroolkii caasimadda Hargeysa la soo raray waxa ka shaqeeyay beesha halkan degan madaxdeeda wasiiradeeda maareeyaasha diijiyada maayarka caasimadda Hargeysa golaha deegaanka ee Salaxley horta aad iyo aad baan gobol ahaan idinku mahadcelinaynaa anigoo ka mas'uula gobolka Maroodijeex aad iyo aad baan waxa weeyaan sida sharafta leh ee milkaha leh ee waxa weeyaan noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa waxaan ka hadlayaa maanta halka aan dhignay dhagaxa ee kontaroolka la dhigayo wixii kontaroolka xagga Hargeysa ka xiga caasimadda Hargeysa la wareegaysa dadkaasi waxa weeyaan caafimaadkooga wadooyinka waxa weeyaan in wadooyin fiican loo dhiso caafimaad iskuulada wixii adeegay dadkaasi u baahan yihiin maayarkii caasimaddu uu yag joogaa isaga laga rabaa maanta waxaanu joognaa ama aynu kala xadeynaynaa labada degmo Hargeysa iyo runtii Salaxley oo ujeedada iyo hadafka ugu weyn ee maanta halkan aynu u joogna ay tahay annagoo fulinayna wareegtadii ama digreetadii ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee uu ku kala xadeynayay degmooyinka Salaxley iyo Hargeysa iyo Balugubad Hargeysa iyo Faraweyne Hargeysa iyo Dar es Salaam runtii wareegtadaas oo wasiirka arrimaha guduhu soo saaray oo runtii aan degmadan oo khaliya aan ku koobnayn dhawaanna runtii la kala xadeyn karo degmooyinka kale ee aan soo sheegnay annagoo digreetada fulinayna ayaanu halkan labadii degmo iyo mas'uuliyiintii deegaankani aan halkan iskugu nimi hadafka guud iyo xigmadda ku jirta in halkan la keenaana waxa weeyaan waa fiditaankii caasimadda Hargeysa oo dadka ku nool iyo runtii daaraha ku yaala iyo caasimadahan aynu doonayna mid la tartanta caasimadaha kale ee geeska Afrika runtii anagu halka maanta waxaan ka soo gudbinaynaa hal codsi dikrino uu maqlaya maayarka caasimaddu halka codsi waxa weeyaan saamaynta ay ku yeelanayso marka ay maanta inta wareejino degmada ee dhaqaale taasoo runtii boqolkiiba 65 ku qiimeynay in dhaqaalaha xaggan hoose naga soo galay inta dhulkaan wareejin inuu miisaaniyadda ka mid yahay inaan loo timaadeen oo la dhagax dhigteen kala xadeynta Hargeysa iyo Salaxley raallina waanu ka nahay arrinta muddo dheerna waanu doonaynay inaanu kala xadeyno aad iyo aadna waa mahadsantiin dhamaantiinba reer Salaxley oo ku mahadsan inay wareejiyeen dhulkan taaleed oo noqday geesnimadii ugu horeysay ay sameeyaan maayirka degmada Salaxley iyo maayir ku xigeenkiisa iyo tiimkiisaba sida milgaha iyo sharafta la soo dhaweysay waa idinku hambalyeynaya sida ragga iga horeeyay sheegayna waxaan idin leeyahay horta oo dejid iyo qaad waa isla guriga geyn deegaanka waxaan u sheegayaa iyo cid walba meeshan waxa ay ka mid tahay Hargeysa waxaana lagu darayaa Hargeysa Salaxleyna waxba ku waaymayso cashuurta Hargeysa laga qaado ayay ka mid noqonaysaa cashuurta halka laga qaada fikta aynu maanta taaganay geedka inoo muuqda waa geedkii Suldaan Cabdullaahi uu fariistay ee uu yiri wixii ka hooseeyana waa dooxooyin oo dadka beeraleyda xooluhu ka baxeen baa beeranaya wixii xagga ka xigana dadka xoololeyda deg ayaa daaqsanaya mitirka uu suldaanku hore u dhigay taariikh badan uu soo maray waanu suldaanku defishan buu lahaa uu garinayay in Hargeysa caasimaddu halka ku soo fidi doonto maanta aynu halkan dhagax dhignay dantu waxay ugu jirtaa dhinac walba ma hadda labada waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha oo go'aamiyay in la fuliyo sharcigii ahaa in dhul beereedka iyo dhul daaqsinka uu kala qaybiyo mitirku oo intaasoo sharci ku jirta ee go'aamiyay in
intaa wixii waqooyi ka xiga mitarkana degmada hargeysa la raaciyo wixii xagga hawdka ka xigana degmada salaxley la raaciyo halkan maanta guul baa ka dhacday insha allah waxaynu arki doonaa halkaasoo isbedeshay oo dhaqaale ahaan isu bedeshay iyo horumar ballaadhan ka dhacay insha allah haddii ilahay idhaahdo qof wixiisa laga qaadayaana ma jirto qofka xagga dambe ka hadlaya ee ummadda tashuushka ku furaya war qofna wixiisa laga qaadi maayo halkan horumar baa ka soconaya waanay bilaabantay cid allaaliyo cid la duunayaana ma jirto waxaa doonayaa dhagax dhiggan iyo kala xadayntan salaxley iyo hargeysa in loo fahmo in salaxley ay tahay hargeysana tahay salaxley ummadda ilaahay halkan ku abuurayna ay yihiin dad marna reer hargeysa marna reer salaxley in halkan xadka la dhigaa golaha deegaanka hargeysa ugama dhigna huguri iyo dhuudoon ugama dhigna waxay uga dhigan tahay dadkii muwaadiniinta ahaa ee deegaankan deganaa xildhibaanadii u codeeyeen ee codkooda siiyeen inay kula xisaabtamaan waxqabadka ay xaq ugu leeyihiin codkooda halku marayna inay helaan wey